hore waxaan u soo review garan jirnay iPhone, Samsung iyo mobilada caanka ah ee dalkan laga isticmaalo in aad wada naqaan. Maanta waxaan review garan ama waxaan idinka dhaadhicin doonaa ama tusi doonaa mobil la yiraahdo CMF Phone 1 ee soo saartay shirkadda Waxba. Soomaaliya marka la yiraahdo Waxba, English waxa ku noqonaysa shirkadda la yiraahdo Nothing. Shirkaddaas waxay soo saartay mobil la yiraahdo CMF oo mobil flagship ah, mobilada qiimaha jaban ee kuwooda ugu qiimaha jaban ee sanadkan soo saartay waliba soo baxay bisha July 8 ama bisha hadda laga soo wareegay ee July ahayd maadaama imka ku jirno bisha 8 oo aakhirkeed bisha July ay soo saartay shirkadda Nothing mobilka la yiraahdo CMF oo ka duwan mobiladii hore ee ku naqaanay Nothing sida kuwa hadda ka arkayso kale kuwaas oo dhan uu ka duwan yahay mobilkan ku tii doono hadda mobilkan waxaan review garan doonaa shantii qodob ee ku review garan jirnay mobilada oo dhan hadii noqoto build quality-ga mobilka haduu noqdo performance-ga mobilka haduu noqdo batteriga iyo kamarada dhammaan waa intuu si doonaa mid walba specifications oo gaarka qaabka uu shaqeynayo iyo waxa mobilkan uu ku fiican yahay ama inuu ku habboon yahay inaad iibsatid ama in mobilkan aad iska diisid ila daw fiidiyoga inuu dhameystiro hadda mobilkan Phone 1 hadii eegno performance-giisa ama mobilkan sida uu u shaqeynayo system-kiisa iyo waxa ku shaqeynaya software-kiisa mobilkan waxa ku yimaada Android 14 ay ku yimaada waliba waxa haystaa 2 sano dambe oo update ah oo shirkadda Android ay update-keeda u soo deyn kareyso mobilkan CMF Phone 1 macna 2 sano dambe update-kiisa warwari message toos waa isticmaali karaysa update walba soo dega toos baa la isticmaali karaysa oo la socon karaysa marka mobilka system-kiisa intaan ka bixin sidoo kale mobilkan wuxuu ku yimaadaa chip-kiisa ama processor-ka mobilkan isticmaalayo waxa la yiraahdaa MediaTek Dimensity 7300 ama 7300 Dimensity ayaa la yiraahdaa waa flagship mobilkan mar hadduu qiimihiisu uu ka hooseeyo $300 marka mobilkan waa mobilada dhexe awoodiisana waa awoodda dhexe chipka uu isticmaalay laakiinse waa chip aad u fiican oo marka loo eego mobilada qaarkiis ay isticmaalaan chipkaas ay ka qiimo sareeyaan mobilkan isagoo uu ka qiimo jaban yahay shirkadda soo saartay iyo meelaha qaarkood ay focus gareynayaan marka loo eego mobilada kale ee ka qaalisan marka mobilkan chipka uu isticmaalay waa MediaTek Dimensity 7300 mobilada qaar baa jira isticmaalaya isla chipkaas oo kale laakiinse ka qaalisan intay doonaan waliba $100 iyo dheeraad u farqi u dhaxeeyo laakiinse mobilkani isagoo isla process-ka la isticmaalaya system-kiisu ay haddana ka yara qiimo jaban yahay marka performance-giisu okay weeyaan memory-ga hadda mobilkan uu ku imanayo wuxuu ku imaadaa 128GB iyo 256GB marna 6 RAM buu noqdaa marna 8 RAM waxaad ka dhigan karaysaa aad 8 RAM waad iibsan karaysaa isagoo 128 RAM oo iibsan karaysaa 256 RAM 256 RAM labadooda heli karaysaa marka mobilkan wax kale oo ku fiican yahay marka laga yimaado RAM-ka iyo storage-kiisa maskaxda uu ku wato inaad gashan karaysid memory-geeda ama card-keeda memory-ga ah aad gashan karaysid inta doonto ilaa 2 TB memory ah aad gashan karaysid oo aad saarto isticmaalaysid laakiin badana mobilada dambe imika Samsung oo kale iPhone oo kale male meel laga geliyo memory-ga laakiin mobilkani isagoo 256 ama 128 waxaad gashan karaysaa memory card-ki sadarteed ilaa infinite ba ka dhigan karaysaa storage-ka marka mobilkan performance ahaan iyo isticmaal ahaan sida ka arkaysid games-ka lagu ciyaarayo sida ka arkaysid videos-ka lagu daawanayo quality-ga mobilkani ma xuma qiimihiisa waa maadaama flagship yahay mobilada dhexe uu yahay qiimihiisuna oo ka hooseeyo $300 marka mobilkan adoo ka bixiyay qiimo ka hooseeyo $300 ha ka filan in uu shaqeeyo sida mobilada $900 laga bixiyo ee S23 iyo S24 mobilkan maadaama qiimihiisu uu yahay middle range-ka ama kuwa dhexe performance-giina isla saas kala noqonaya maadaama qiimahaba lagu qiimeeyo performance-ga mobilka marka mobilkani marka loo eego qiimihiisa uu qalmaa performance-giisu intaan ka guda bixin mobilkan build quality-giisa waxyaabaha la yaab kale ee mobilkan aan aadka uga yaabay marka aan dalbayna aadka uga yaabsanaa oo aan islaha mobilkan aad tijaabisid waxa kamid ah mobilkan in aad isticmaali karaysid saddex midab uu leeyahayba halka mobilka aad isticmaali karaysid macnaha mobilkan wuxuu ku soo baxaa saddex midab halka arkaysid laakiin saddexdoodaba halka mobil aad ka dhigan karaysaa waxa kaliya sameynaysa waxa weeye inaad dalbatid saddexda kofar aad arkaysid ama box-ka yar baad dalbanaysaa ama bag-ga yar ay ku jiraan saddexda midab ama saddexda kofar ee dambe deedna waad ka furaysaa sida halka arkaysid bag side-ka dambe waxaad ku xiranaysaa midabka aad jeceshahay ma casaan ma orange ma blue ma white ka jeceshahay baad ku xiran karaysaa haddii kan uu ka damage garoobo ama wax ka gaaraan waa iska bedeli karaysaa kofar kale ku xiranaysaa mobilkan inaad bedeshay oo kale laakiinse ha ku xisaabtamin mobilkan muraayadiisa haddii uu ka jabto inaad ka bedeli karaysid sida back side-ka oo kale laakiin back side-kan aad ba customization ugu samayn karaysaa ilaa waliba boolkan dambe kaga xiran qaabkaad u isticmaalaysidna waa qaabkan waxaad ku xiran karaysaa xarigga aad arkaysid qoorta suran karaysid waxaad ku xiran karaysaa MagSafe-ka oo aad ku charge gareyn karaysid wireless charge-ka waxaad ku xiran karaysaa stand-ka yar aad dhigan karaysid mobilkaaga marka mobilkan customization-kiisa
build quality-ga waxaan isleeyahay xoog bay halka uga soo bixin waliba mobilada kale aad bay ku dhaafeen haddaan iminka israado mool iPhone aan 15 oo kale impact sirkayga dambe uu iga jabo aan iska bedelo israado waxay u qaadanaysaa qiimo aad u badan laakiin mobilkan saddex midab oo kale ayaan u isticmaali karayaa qiimo aad u jaban orange blue white intaba waan ka bedelan karayaa xaqiis dambe marka mobilkan xoog awood waxay uga saareen oo aad uga duwan yihiin mobilada kale adduunka laga isticmaalo build quality-giisa shirkad ka soo baxday build quality hadaan reed gareeyo boqolkiiba 200 baan sii laa mobilkan marka loo eego qiimaha sitay iyo customization-ka ay aadka u siiyeen mobilkan build quality-giisa hadda mobilkan qurux badan arkaysid display-giisu wuxuu ku imanayaa AMOLED sida mobilada Samsung-ka ama nooca A-da ama F-ta ama M-ta oo kale ayuu ku imaadaa mobilkan marka display-giisu refresh rate-kiisu waa 120 Hz weeyaan sida mobilada iPhone 15 oo kale ay refresh macnaheedu arkaysa smooth u yahay ama sida uu xawaarihiisa u dheeranayo aan ku dhigdhig lahayn oo aad ku fiican yahay smoothness u yahay mobilka marka refresh rate-kiisa 120 waad bedelan karaysaa waxaad ka dhigan karaysaa xataa 60 Hz ayaa ka dhigan karaysaa refresh rate-kiisa standard ba ka dhigan karaysaa oo waxaad arkaysaa inuu maartay sidii hore aan la mid ahayn oo yar ku dhigdhigay ama ka yar culus yahay waad ka dhigan karaysaa 120 Hz haddii aan rabin culayskaas waad ka dhigan karaysaa caadiga loogu talagalay high aad ka dhigan karaysaa oo noqonaysa 120 Hz sidoo kale mobilku wuxuu leeyahay laba theme oo isagu ku yimaado oo aad halkan ka bedelan karaysid customization-ka deedna aad icon bags-ka aad ka dhigan karaysid ama nothing ama sida default-ga marka default-ga aad doorto arkaysaa wuxuu u eeg yahay qaabka Google Pixel-ka oo kale uu eeg yahay laakiin sida rabtid inaad ka dhigatid setting-kiisa ama icons-kiisa caadiga ee mobilka nothing waxaad tagaysaa meesha la yiraahdo customization deedna waxaad dooranaysaa icon bag nothing ma doonaysaa imka waxaad arkaysaa in dhammaan mobilka uu iswada bedelay icon bags-ka oo dhan isbedeleen ama qaabka u eeg yihiin icons-ka mobilka marka display size-kiisu wuxuu ku imanayaa 6.67 almost waxay sil eeg yihiin mobilka la yiraahdo iPhone 15-ka kali waxaad moodaa in mobilka iPhone 15-ka uu ka yara gaaban yahay laakiinse curve-ka laaban ayaa keenaya inaad moodid inuu ka gaaban yahay laakiinse mobilkan wuxuu ku imaadaa 6.7 inch halkan uu ku imanayo 6.67 inch macnaha 0.3 inch ayaa farqi u dhaxeeya oo kana yar weyn maadaama uu aad uga dhuuban yahay 15-ka mobilkan sidoo kale wuxuu ku yimaadaa display-giisu quality ah 1080p quality ayuu ku yimaadaa oo muuqaalada HDR-ka ah si fiican oo qurux badan ugu daawan kartaa marka arkaysid haddii aan ku dalaco iftiinkiisa waliba inkastoo iftiinkiisu aad u cadaan badan yahay haddana waad arkaysaa in si fiican oo full HDR aad ugu daawan karaysid muuqaalada muuqaal walba 2K ilaa 4K ah si fiican oo qurux badan oo aan ku dhigdhig lahayn ama aan kaaga cuslaanayn ayaa ku daawan karaysaa hadda mobilkan xagga brightness-kiisa marka ay noqoto aad ayuu uga cadaan badan yahay markaad full brightness aad geysid mobilada Samsung-ka oo mobilada Samsung-ka ilaa 15 waxay isticmaalayaan 2000 oo nits cabirka brightness-ka mobilada ama shaashadaha isagu wuxuu isticmaalayaa 2500 oo siyaada ah marka aad joogtid mesela meel cadceed ama iftiinku aad uga badan yahay waxaad isticmaali karaysaa full brightness-kaaga adoo si fiican u arkaya shaashada mobilkaaga way mobilkan hadaba kaamiradiisa cajiibka ah ee labada dambe halka kaga yaala ama main camera loo yaqaano midna waa 50 megapixel midna waa 2 megapixel kaliya tan 2 megapixel iyadoo waxa loo isticmaalaa inay boost garayso ama ay awood siiso labaad ama ay hagaajiso quality-ga iyadoo isticmaalaysa isla cameradan kale laakiin main camera mobilkani waa tan sare oo quality-geedu uu yahay 50 megapixel sawiradan ka qado arkaysa qofkan madow aan ka qaaday sawirka ee cali oramo la yiraahdo iyo sidoo kale buildings-ka ama meesha aan joognay khayriyada ee aad ka qurux badan cagaarka sawiradan ka qado arkaysa adaa qiimeyn karin marka sawirada quality-gooda inay xun yihiin ama inaan u qalbin qiimaha ama inay u qalmaan oo quality-gooda fiican yahay quality ahaan marka la yiraahdo markaad eegtid color-ka aadka u quruxda badan ee midabka contrast-iga uu ku dalacayo cagaarka iyo midabada uu siinayo si boost ah contrast u siinayo waxaan is leeyahay quality ahaan aad u fiican yahay marka loo eego qiimaha aad ka bixinaysid 300 ka hooseeya quality-ga sawirada mobilkan uu qaadayo xaqiiqatan aad bay qanciyeen oo aad bay u fiican yihiin adiguna waad qiimeyn karaysaa haddaba mobilkan sidoo kale video-ga uu duubo marka ay joogto kamarada dambe ee main camera wali aan ka hadlayno waxaad duubi karaysaa 4K ayaa duubi karaysaa oo 30 frame per second sidoo kale selfie-ga mobilkani sida aad ka arkaysid sawirada aan iskaga qaaday iyo videos-ka aan iskaga duubay oo khayriyada joogaba waxay qaadi karaysaa sawir ah quality-giisu 16 megapixel sidoo kale video-giisa marka aad duubaysid waxaad duubi karaysaa 1080 30 frame per second ilaa 60 frame per second معناها quality سو smooth marka aad duubayso selfie video camera laakiin waxa muhiim in xooga saarayso kamarada selfie-gu xagga skin-ka inay ka dhigto smooth marka video aad duubaysid laakiin saad arkaysid sawirada markaas ka qaadaysid selfie-da waxay ka dhigaysaa sawirada mid sharp ah ama quality-giisu xooga ka yara sareeyo ka video-ga laakiin saa ku sheegay video-gu xooga saaraya skin tone-ka ama midabkaaga inuu ka dhigo smooth oo ka saaro finanka iyo jeexjeexyada iyo dhaawacyada wajigaaga ku yaala oo aad uga dhigay smooth sidii filter isticmaalay sidoo kale kadad ka heshid smoothness-ka noocaas oo kala mobilkan
aad buu ku anfacayaa selfigiisu adiga laakiinse qiimeyn doona quality-ga sawirada aan ku tusi doono iyo fiidiyoowada haddaba mobilkan cajiibka ama qaab dhismeedkiisu caadka cajiibka u yahay bayterigiisu kama dhaco bayteriyada Samsung-ka in aad ka u amaano iyo Xiaomi-ga iyo mobilada kale ee 5000 mAh bayterigoodu yahay kama dhaco isaga laftirkiisu waa 5000 mAh waliba wuxuu ku hayn karaa isagu ilaa 30 saacadood maadaama iyagu xoog awood u saareen inuu waqti dheer ku sii hayo isagoo isticmaalaya bayteriga ugu yar imikadan aan duubayo intii aan duubiyo fiidiyoga dhan mobilkan bayterigiisu hal kaliya ayuu taagnaa muddo saacad ku dhow ayuu mobilkan hal kaliya u taagan yahay oo aan caadi u isticmaalaya oo u shaqeynaya marka mobilkani waxaan oran karaa isagoo haddana 5000 mAh ah wuxuu ka yar bayteri fiican yahay mobilada Samsung-ka oo haddii aad tahay qof sida dhexa u isticmaali kara fiidiyoos kaga daawan karayo WhatsApp-ka iyo social media isticmaalayo waxay rabtaa ilaa 30 saacadood waad dhaafin karaysaa laakiin dad games ciyaaraysid oo fiidiyo badan ku daawanaysid oo social media aad u isticmaalaysid 24 hours waa ku dhaafin karaya oo laakiin ilaa 30 hours inuu gaarsiin karayo ma hubo laakiin mobilkan marka loo eego lacagta aad ka bixinaysa mar walba waxaad ku xisaabtamaysaa lacagta ka bixinaysid performance-giisa ama awoodiisa ma u dhiganta lacagtii lacag ka hoos $300 bayteriga inta la eeg waliba bayteriga ayaa aad uga awood badan lacagta aad bixisay waxaan isleeyahay taada ku faa'iido qaba adiguna laftigaaga waad qiimeyn doontaa markaad iibsid mobilkaaga bayterigiisa inta uu ku hayn karayo hadba ku kala xiran tahay sidaad u isticmaalaysid qof waa gamer ama aad u isticmaala mobilka kaas uu ka waqti yar yahay qofka aan aad ka u isticmaalayn wax badan ku daawanan social media aad u isticmaalayn mar walba waxay ku xiran tahay isticmaalkaaga laakiinse $300 qiimo ka hooseeya iyo bayteriga inta la eeg هذا فائدة قوي. هذا conclusion كم موبايل كانوا حنسليه موبايل كان مركز كبحيسيد قيمة $300 كوسيا مرور بكوس علني الله إيجو أوديسه هذه نقطة performance هذه نقطة كاميرا هذه لا صداوتي يبي تريجا سيدا كل qualities أما بالqualities عجيب كأ وليبقى هذا أود أوله إن هذا الموبايل كي هنس أد بدشيد قيمة هذا شبان هذا قان الموبايل كبدلين لكن أبدل كريس كفر كيسة طنبه وليبقى هذا وحياة بدنا customization هاد كوسمين كريسي دان هو أصلا أجنبي بالquality وأصلا أجنبي وحياتها الموبايل كان عاد أيو تشبيه هي قيمية سمرك الله إيجو بالكواليتيgiisa waliba performance-giisa sidoo kale kaamiriisu waa nooc dhexe laakiin bayterigiisu aad bay awood badan tahay marka waxaan isleeyahay mobilkan waxaan siin lahaa 90% lacagta la siiyay inuu sida uga soo baxo tobankan waxaan ugu lahaday maadaama kaamiriisu aan gaarsiisnayn kaamirada mobilada la midka ah ama laakiin mobilkan iyo kaamirada awood kaliya uu siiyay kaamirada dambe marka waxaan isleeyahay mobilkan waxaan siin karaa 90% lacagta soo bixisay inuu u qalmo iyo in kale adiguna comment-iga la wadaag okay rafiiqa soo dhameysatay inta aad siinaysid rate ahaan mobilkan 100% imisa comment-iga nagu la saaxiibkana ku soo garay mobilkan tijaabiye shirkadda muraasad ka heli karaysa xataa hadii on all-in waa lagu dalbi karayaa wax kugu imanayaan 3 casho 4 casho ilaa 7 casho sidoo kale mobilkan kaliya ma aha mobil walba aad jeceshahay nooc walba adduunka ku aragtay ama fiidiyogiisa aad aragtay isla wadanka laga meeli karayo shirkadda muraasad ku suurta gelinaysa waad ka dalban karaysaa meel walba oo yaalo nooc aad jeceshahay mobilka soo sheeg comment-ka ku soo qor dalabkiisana waad ku heli karaysaa muddo ka yar 7 casho